وورقدي ugu horeysay imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiga sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiga dhexe ee Puntland oo uu bixinayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni 15,800 oo arday ayaa imtixaanadan saaka u fadhiistay guud ahaan gobolada Puntland. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa sheegay inay maanta u tahay maalin farxadeed. maanta waxay noo tahay wasaaradda waxbarashada waxay u tahay farxad arday ku dhow 16,000 oo arday ayaa waxay u fadhiisanaysaa maanta waqti in yar ay ka dhiman tahay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Puntland. halka kan dugsigan Gambool aynu ka daahfurayno imtixaanka maanta waxaa ku gelaya 505 arday xarun aad u ballaaran. waxaan rajaynayaa insha Allah guud ahaan ardaydaas 16,000 ku dhow inay si siman u guuleystaan. anagu Soomaaliya horaan uga gudubnay Afrikaan hadda qayb ka nahay tartankeeda sanadkan waa markii ugu horeysay oo aan tartanka la gudubnay. meel kasta ay joogaan reer Puntland waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin dadka reer Puntland waa sanadkii 16aad oo imtixaan aan gelayno. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo si rasmi ah u daafuray imtixaankan waxa uu tilmaamay in sanadkan uu uga duwan yahay sanadadii hore ee waxbarashada oo ay feejignaan gaar ah u leeyihiin ilaalinta imtixaanadan maadaama uu baxay kii dawladda dhexe. waxaan rajaynayaa dhammaan waalidiinta ardayda macallimiinta kormeerayaasha sanadkan wuxuu noo leeyahay macno ka duwan macnayaashii hore. waxaan aad u rajaynayaa ardayda reer Puntland in ay imtixaanka ay galayaan uu ka muhiimsanaado imtixaankan inay najaxaan iyo in imtixaanka gelidiisu ay najaxdo waa inay isugu mid noqotaa. in systemka imtixaanka qorshaha uu ku socdo aad ku guuleysataan inaad muujisaan ilbaxnimo inaad muujisaan dad nidaamka u hoggaansan in waxyaabaha ka dhacay hadda dawladda federaalka ah dhibaatooyinka laga sheegayo oo kale ay nagu dhicin mas'uuliyadaas. waxaan aad uga mahadcelinayaa intii imtixaanadan ay socdeen waxaa la sheegay hal magaalo in mar si khasab ah lagu jabsaday iyadana imtixaankii la bedelay marna liig iyo imtixaan baxsaday ama imtixaan suuqa galay uusan jirin. waan rajaynayaa sanadkana sidii oo kale waan ilaahay ka rajaynayaa laakiin dadaal iyo foojignaan dheeraada ayaan farayaa dhammaan howlwadeenada. imtixaanadan sanadka ee Puntland ayaa uga duwan kuwa hore in dawladda dhexe ay u soo bandhigtay inay ka qayb galaan kuwa dhexe ee dawladda kuwaas oo ay Puntland qaadacday waxaana si weyn loo ilaalinayaa ammaanka imtixaanada maadaama uu kuwa dawladda dhexe ay fashilmeen. ardadan ayaa imtixaanadan u fadhiistay iyadoo aan weli dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland aysan ka heshiin khilaafkii ka dhashay imtixaanadan waxaana dawladda dhexe ku goodisay inaysan ka maqraati kici karin imtixaan aysan qaadin balse waxa la dhowrayaa talaabada ay Puntland qaadayso si ay ardadan u helaan shahaado ay ku tagaan jaamacadda ay rabaan. Maxamed Saar SBC Garowe.